is aragtida Bondaawadayaal ku soo dhawaada warka VOS Somali TV qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday muddo kordhin hal sano ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaybo kamid ah culimada Soomaaliya oo ka wada hadlay xaaladda kala guurka dalka magaalada Baydhabo oo laga mamnuucay hubka culus oo ay wataan saraakiisha ciidamada iyo hubka sharci darrada ah Villa Soomaaliya oo wajahaysa cadaadis caalami ah Xasan Cali Khayre oo si kulul uga hadlay caburin uu sheegay in lagu hayo dhalinyarada akhbaaradka dibadda warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah duqaymo ka dhacay Lubnaan iyadoo ay wali socdaan wada hadallo iyo Iiraan oo si cad u diiday wada hadallo hanjabaad ah ay la socdaan qodobadaas iyo wixii kale oo nagu soo kordhay aad ku daawan doontaan warkeena habeenimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Afraad Abriil sanadka 2026 ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad hordhacda daawateen oo intaas ka dhameystiran xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday muddo kordhin hal sano ah sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Sheekdo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay muddo xileedka hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya isagoo cadeeyay in ay tahay muddo 5 sano ah muddo xileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida ku cad dastuurka cusub ee dalka waxa uu cadeeyay in dawladda haatan jirta ay dhameysan doonto muddada 5 sano ah ee ku qoran dastuurka cusub ee dalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dastuurkii hore ee ansixiyeen ergada Soomaalida iyo kan cusub ee haatan la meelmariyay ay isku mid yihiin muddo xileedka madaxweynaha dalka hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa saameyn ku yeelan kara jihaynta siyaasadda ee dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda sidoo kalena xoojin kara khilaafka siyaasiga ee la xiriira muddo xileedka ama muddo kordhinta iyo sidoo kale kalsoonida shacabka iyo saaxiibada caalamka dadka Soomaaliyeed ee aqlabiyadoodu waxay qabaan anigu marbaan aan maxaan ku dhahaa cilmi baaristaas dadkii sameynaya ku jiray hadda ka hor marka su'aasha xildhibaanka iyo wasiirka ma la kala qaadaa mise way isla soconayaan dadka Soomaaliyeed waxay qabaan boqolkiiba 90 inay ka yihiin u malaynaya hadayna ka badnayn in la kala qaado marka dadkaas iska rab marka dadka Soomaaliyeed waxay rabaan hadii la sameeyo dhib ma leh ragaan saaxiibanahay waxaan arkay si weyn arabka u adkeynaya waqtigii waa dhamaaday dastuurkiina dastuur ma ahayn waqtigiina madaxweyne xasan waa ka dhamaaday 15 May buu ku egyahay madaxweyne u dhageyso maqal rag la arkayo si fiican ugu fasaxaynayo heer sare marka waxa isdiidaya dastuurkii 12 baa dastuura iyo waqtigu dhamaaday isma balaba dastuurka 12 ay ansixiyeen ergadii 800 iyo something ahayd waxa ay noogu qornaa ay ku ansixiyeen termku inuu 5 sano yahay marka hadii dastuurka 12 la ansixiyay lagu noqonayo maxaa keenay 15 May bay baash ku egtahay leen dastuurka saas ku qornay baarlamaankii baa bedelay markii dambe qodobkaas marka horta taas waa taasoo isma leh waa in la isku waafajiyaa dastuurkii 12 baa dastuura waqtigiina waa dhamaaday isma qabanayso haddii kan la qaato imika la dhameystiray dastuur cusub ma aha waa dastuur la dhameystiray sidii dastuurku farayay ayaa loo dhameystiray haddii ka la dhameystiray sida wasiirada loo dareerinaya imika haddii kaas la qaatana fatradu waa 5 sano haddii kii 12 la aadana fatradu waa 5 sano marka meel looga baxo 5 sano ma jirto marka waxaan rabnaa dastuurka Soomaaliyeed
ciddii lahayd baa dhammaystirtay xildhibaanadii beriga yidhi fadhigoodii ugu horreeyey intay fadhiisteen uu Jawaari Allah u naxariistay guddoominayay yidhi laba qodob baan dastuurka ka bedelnay oo ahaa qodobkii 5 sano 4 sanaan ka dhignay waxaa kaloo ka bedelnay madaxweynaha kala diri kara baarlamaanka qodobkaana waan ka bedelnay oo waa diidnay oo deedna sidaas ku soo shaqeynaya intaas oo dhan ee aynu sidaa u aqbalnay ee sidaa u yeelnay ee 4 sano ay xukuumadii hore ugu dhamaatay oo tii labaad ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ay sidaa ugu dhamaatay isla kuwii oo xildhibaanadii uun baa haddana 5 sano dib soo celiyay marka maxaa marna xagga ka dhigay afatuuminuna bi bacd alkitaabi wa takfuruna bi bacd marka meeshii la arkaa ma loo dhaqaajinaya wax waa in jid la raacaa oo siyaasaddu jid la raacay leedahay jidkaasina waa jid dimuqraadiyadana waa lagu tartamaa marka lagu tartamana ciddii adkaatay baana wadda cidda kalena waa mucaarad laakiin way ogolaataa marka siyaasad aan qawaacid lahayn oo aan qaacidooyin ku dhisnayn oo aan dadku aynan qaacidooyinkaas ku wada qanacaynin oo aynan ku ogolayn siyaasad ma aha nin baa dowlad goboleed jooga for example xildhibaanuu keensanaya wuxuu soo jiirayaa beeshii iyo isinkeedii ama ugaaskeedii ama dhaqankeedii oo dhan xoog buu ku soo qaadanaya markuu keeno oo xildhibaanadii laga aqbalo oo la yidhaahdo waayahay hala dhaariyo oo la dhaariyo xildhibaankii uu shaqo bilaabo oo yidhaahdo xildhibaankaasaan keensaday oo uu deedna ku soo shaqeeyo oo yidhaahdo hebel ii dooro hebelna ha iga rid oo deedna xildhibaankii shaqada uu soo qabto markii uu xildhibaankii marka shaqadiisii constitutionally ahayd markuu bilaabo ee dastuurku farayay oo ah inuu xeer dejiyo inuu xukuumadda la xisaabtamo iyo inuu representation sameeyo oo dadkii uu ka yimid uu matalo shaqadiisii markuu bilaabo ayuu haddana isla asagii wuxuu oranayaa wixii xildhibaanku sameeyay waxba kama jiraan oo maxaad markii hore u keenaysa maxaa u soo dhacaysa xildhibaanka aan anugu prime minister codkiisa ku ahay ee madaxweynaheenu madaxweynaha ku yahay ee dadka Soomaaliyeed ku aqbaleen asagii u baa haddana dastuurka gacanta u taagay oo dhahay dastuurkanina waa sax waana dhammaystiray maxaad kan ku aqbashay kanna ku diiday anu ma fahmin yani waa siyaasad aan lahayn qawaacid iyo meel loogu laabto oo la yidhaahdo xaydha jecli beerka jecli la jiifiyaana bannaan kaan rabaan diidaya kaan rabana waa iyo waxa siyaasad adduunka laga yaqaan maaha siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda kala guurka ee dalka uu marayo Maxamed Cali Siyaad ayaa warkan faahfaahinaya magaalada Muqdisho maanta kulan waxaa ku yeeshay siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaybo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kulankan oo muddo saacadaha socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka kulankan waxaa hogaaminaya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan oo ka tirsan mucaaradka iyo culimooyin saameyn ku leh bulshada kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka iyo cabashooyinka ka jira maamulka iyo hanaanka dawladnimada ee dalka markii kulanka uu soo dhamaaday xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo culimadii ka qayb galay kulanka ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo muujiyay walaac ku saabsan jihada siyaasadda ee dalka kuna baaqay wadahadal loo dhan yahay sidoo kalena adkeeyay muhiimadda ay leedahay in xal laga gaaro khilaafka haatan taagan ayagana codsaday codsigooda ku nimid waxayna nala socodsiiyeen dareenka ay ka qabaan dalka siyaasaddiisa iyo xaaladda hadda uu marahayo waan ka dhegaysanay dareenkooda annaguna wixii talooyin waa ku biirinay waxaana isla qaadanay in dhammaanteen aan ka wada shaqayno maslaxadda caamka ah waxa ay tabanayaanna aan la qaadno oo maaragtay aan gaarsiino meelaha ay rabeen in la gaarsiiyo sidoo kale waxay noo sheegeen inay la kulmeen odayaasha dhaqanka lana kulmi doonaan bulshada qaybaheeda kale ayadana waa soo dhoweynay si ra'yiga iyo wax laga hadlahayo ee dadka ay khusayso dhammaan ay wada gaaraan oo tada la ballaariyo marka insha allahu tacaala kolba culmo ahaan waajibkii aan u taagnayn ayay nagu sii dhiiriyeen oo shaqadii aan wadnay in la sii wado
oo ahay baraarujinta iyo ka shaqaynta maslaxadda caamka iyo ilaalinta dalka xasiloonidiisa iyo in khilaafaadka la xaliyo laguna xaliyo wadahadal iyo tanaasul iyo is-arag ayaa isla gaaray insha allahu tacaala. kolba hadda darafka kale oo dowladda ahna weli ma aanu arag kulankan kadib waa arki doona waa raadinaynaa insha allahu tacaala. maslaxadda caamkana dadkao dhan bay ka wada dhexaysaa, marka inaan isla wada qaadno ayaan ku ballannay insha allahu tacaala. ujeeddadanu tahay in sidii hadda laga fiicnaado, khilaafaadku meesha ay ka baxaan biidni illahi tacaala, ciddii khaldan la toosiyo, wixii wanaaga la taageero. inahaas ayay warka maanta aan maaragtay kala kulannay mas-uuliyiinta siyaasiyiinta mucaaradiinta ah. madaxweyne xasan sheekh wuxuuna kala dooransiinayaa laba shay. wuxuuna kala dooransiinayaa inuu meesha iska joogo, sharci darro uu ku joogo, iyo in doorasho uu natiijadeeda asaga ogyahay uu qabsado. dee labadana lama yeeli karo. inuu joogana lama yeeli karo, in doorasho asaga uu natiijadeeda ogyahay oo asaga uu leeyahay keligii uu qabsadana lama yeeli karo. annagu marka maxaan rabnaa? annagu waxaan rabnaa doorasho asaga raalli ka yahay, annaguna raalli ka nahay, dhammaan bulshada Soomaaliyeed idilna ay raalli ka yihiin. ma doonayno doorashadii 2022 ee boobka ku dhisnayd ee qandiga uu ku soo reedinayay madaxweyne dowlad goboleed xildhibaanada ma doonayno. sidaas si la mid ahna ma doonayno doorasho madaxweyne xasan sheekh uu kombiyuutarka ku wato oo asaga natiijadeedu uu ogyahay ma rabno. labadaasba wax u dhexeeya oo laga tashtay ayaan diyaar u nahay. markii xilligeeda la gaarana waxaan diyaar u nahay moodalka doorasho oo annagu aan u aragnay inay sax tahay inaan soo bandhigno ayaan diyaar u nahay. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan intaa weheliye waxyaabaha kaloo culummada kala hadalna waxaa ka mid ah dhibka iyo barakicinta baahsan ee shacabka Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed dowladda ay ku hayso. dowlad dadkeeda barakicinaysa, dowlad dadkeeda u turtay la arki jiray ayaan kala hadalnay. waxaan kala hadalnay afduubka iyo dadka wariyeyaasha ah iyo dadka maaragtay shacabka ah ee xaqiiqada iyo runta iyo dhibaatada jirta sheegay sida loo xirxirayo oo loo hadda ugu muhiimsan tahay gabadhii Saacadiya Macalin ay ugu muhiimsan tahay. wad ogtihiin dhibaatada xabsiga ku haysata, duruufaha ku haysata xabsiga aad ogtihiin. wax kaloo loo haystaa maaha, ma jirto. waxaa loo haystaa maxaa runta u sheegtay, maxaa xaqiiqada u sheegtay ayaa loo haystaa. waxaan u malaynayaa keligii talisnimo iyo caburin waddankani uu soo maray meesha uu geeyna waa ognahay. burbur iyo baaba ayuu geeyey. keligii talisnimo iyo baaba kalena dalkani inuu u laabto annagana ma doonayno. maslaxad iyo danna uma aha. aad iyo aad u mahadsantiin. magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ayaa laga mamnuucay saraakiisha in ay ku dhex qaataan hub culus. sidoo kale waxaa laga mamnuucay hubka sharci darrada ah. magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah looga mamnuucay qaadashada hubka culus iyo sidoo kale hubka sharci darrada ah oo ay wataan dadka rayidka ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay mas'uuliyiinta ammaanka ee magaaladaasi. war-saxaafadeedka ay si wadajir ah u soo saareen taliska booliiska gobolka Baay, wasaaradda amniga Koonfur Galbeed iyo xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu cadeeyay in go'aankan uu yahay mid lagu xoojinayo amniga guud ee magaalada Baydhabo. mas'uuliyiinta ayaa sheegay in si gaar ah loo mamnuucay in saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ay ku dhex wataan gudaha magaalada hubka culus. waxay tilmaameen in tallaabadan ay ka dambeysay kadib markii la arkay falal amni darro oo la xiriira hubka sida aan nidaamsanayn loogu dhex wato magaalada, taasi oo halis gelisay badqabka shacabka. sida maanta u jeedaan waxaan shir jaraa'id u qabanaynaa xakamaynta hubka dhex socda ama lagu isticmaalayo magaalada Baydhabo sida sharci darrada ah. hay'adaha ammaanka ahaan anoo ku hadlaya afka hay'adaha ammaanka waxaa sidaad maqlayseen golaha wasiiradan hore ay u soo saareen xeer lagu mamnuucayo isticmaalka hubka waaweyn ee magaalada dhexdiisa ah. xeeraalinta maxkamadda ciidamadana sidaas oo kale aad maqlayseen. hubka waaweyn waxaa magaalada Baydhabo maanta 21 Abriil 2022 ka mamnuuca waan gaarsiinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada dadka saraakiisha ciidamada dhammaantood faritaana dowladda Koonfur Galbeed ay soo saartay in dhammaan maanta laga bilaabo taariikhdu iyadoo horena qoraal looga soo saaray ay mamnuuc tahay isticmaalka hubka waaweyn ee loo isticmaalo magaalada dhexdeeda ee lagu wato magaalada dhexdeeda sida qoryaha waaweyn ee dadka diyaaradaha ee dhashiikuhu yar yahay, qoriga PKM-ka ee boobaha ah, qoriga RPG-ga oo magaalada dhexdeeda sideedaba mamnuuc ka in loo isticmaalo ama qoriga 7-ka la yiraahdo
intaasiba magaalada isticmaalkeeda mamnuucay ka yihiin mas-uuliyiinta dowladda ee wadata ay isticmaalaysa waxaan halkan ka gaarsiinaynaa in haba yaraatee hubkaas aan la ogolayn hay'adaha ammaanka ee magaaladan ka shaqeeya ee ciidamada kala duwan ee qalabka sidaana ay faritaan cad u haystaan inaan hubkaas magaalada lagu isticmaali karin mas-uuliyiinta dowladda oo siyaabo kala duwan oo xafiisyadeeda lagu gaarsiiyeyna halkan waxaan u marinaynaa inay ogaadaan inaan la ogolayn sideedana bataatanba uu mamnuuc yahay isticmaalka hubkaasi qodobka labaad waxaa sidoo kaleeto mamnuuc ah dadka ama shakhsiyaadka kala duwan ayagoo dhar cad wata dhar shibila wata hubka wata hubkooda xambaarsan dhar shibila ku wata aan la ogeyn wax alla waxay ka tirsan yihiin ciidan yihiin aan la ogeyn magaalada iska dhex maray iyagana waa la mamnuucay horena mamnuucay ahayd maantana si cad ayaan halkan uga sheegaynaa inay mamnuuc yihiin cid loo ogolaanayo cid loo dulqaadanaya aanay jirin waa digniin hordhac ah oo looga digayo dadkaasi in waxay ahayd haba yaraatee hubkaas iyo dharkaas shacabkan la isku isticmaali karin ciidamada kala duwan ee dowladda ee hubkaa isticmaalaya ee hubkaa wata ee shaqo u socda waxaa laga doonayaa inay soo wargeliyaan ciidamadaas wargeliyaan qofkii shaqo u socda ama meel u socda ama xero ka yimid ama meel kale u socda wuxuu ku ekaanaa xeradiisa qofkii shaqo u socdana waa iska warbixinaya markuu ciidamada ammaanka ku dhaco wuu iska warbixinayaa oo iska hor yimaadaan wuu ka warbixinayaa inuu shaqo u socdo meesha u socdo saasna uu yahay waxaa laga xaqiijinayaa madaxdii ka sarreysay halkaas ayaana safarkiisa loogu ogolaanay soo socdo waxaan intaa ka ahayn ilaah idinkiisa waa gacan bira qodobka saddexaad oo aad muhiim ku ah waxaa waaye ridista rasaasta sida xeeralii igu horreeyay uu sheegay waa mamnuuc xeer kastay mamnuuc ku tahay dhaqan kastay mamnuuc ku tahay rasaasta waxaa loo ogol yahay oo kaliya in cadow lagu rido wixii intaa dhaafsiisan ma jiro shakhsi ka tirsan ciidamada ama ciidan u yaala ee loo ogol yahay inuu rasaas ka dhex rido magaalada dhexdeeda dadka gaarka ah ama goobaha gaarka ay caadaystay inay rasaastaas ridaan iyagana tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaynaa sida maxkamadda ciidamaduba ay hadda xeeraalinta ciidamaduba hadda hortiina ka sheegtay intaas ayaan rajaynaynaa maantana taariikhdaas sidaas ay noogu bilaabatay ciidamada ammaankuna waa faran yihiin waa amran yihiin dadka shacabka ah ee magaalada ku degan ama ku degan ama ku dhaqan waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan la shaqeeyaan ciidamada una fahmaan in amniga caasimaddu uu aad muhiim u yahay qof kastoo naga midana muhiim u yahay dhammaanteena aan ka wada shaqeyno wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu villa Soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah iyadoo ay isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida uu warkan markale ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cali Siyaad ila waradyo lagu kalsoonaan karo oo ku dhow villa Soomaaliya ayaa muujinaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo cadaadis si xoogaysanaya oo uga imaanaya dalal si weyn u taageeraya xukuumaddiisa bilihii ugu dambeeyay dalkan ayaa si toos ah ugu sheegay madaxweynaha inaan la sii wadi karin taageero aan sal lahayn oo ku dhisan khilaaf siyaasadeed waxayna ku adkeeyeen in la furo wada hadal siyaasadeed oo dhab ah in lala fariisto mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo kala guurka 25 maalmood oo go'aan adag ah wararku waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah dalalka taageerada militariga Soomaaliya inuu bixiyay waqti kama dambaysa 25 maalmood gudahood in lagu gaaro heshiis siyaasadeed haddii kaleetana taageerada waa la hakin doonaa mashaariicda muhiimkana waa la joojin doonaa geedi socod aan heshiis lahaynna lagama qaybgeli doono tani waxay muujinaysaa heerka uu gaaray cadaadiska dibadda digniin hore oo la iska indhatiray ila wareedadu waxay sheegayaan in fariin la mid ah tan hadda jirta loo gudbiyay villa Soomaaliya ku dhawaad 120 maalmood ka hor gaar ahaanna qaar ka mid ah dawladaha Carabta hase yeeshee dib u dhac ku yimid fulinta talooyinkaasi ayaa sababay hakad ku yimid dhaqaale la filayay dib u dhac ku yimid taageero militari iyo qorshayaal siyaasadeed oo hakad galay maxaa xiga xaaladan cusub waxay gelin kartaa dawladda xaalad adag in la galo wada hadal degdeg ah ama la wajaho hoos u dhac taageero caalami ah arrintu hadda waxay u muuqataa mid go'aan adag u baahan beesha caalamkana waxay fariin u dirtay villa Soomaaliya heshiis siyaasadeed waa lama huraan su'aasha taagan waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya ma aqbali doonaa talooyinkan waqtiga kooban gudihiisa mise waa uu diidi doonaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa si kulul ugu hadlay caburin uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee cabira fikradooda ku aadan xukuumadda hadda talada haysa ee waqtigeedu uu si dhamaanayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si kulul uga hadlay caburinta ay dowladda Soomaaliya ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed Khayre ayaa sheegay in dhalinyarada dalka ay wajahayaan cadaadis sii kordhaya gaar ahaan kuwa cabira aragtiyo kala duwan oo ku aadan dhanka dowladda waxa uu tilmaamay in arintan ay halis ku tahay mustaqbalka dalka iyo xasiloonidiisa
waxa uu tusaale u soo qaatay xariga Sacdiye Macalin oo ah gabar dhalinyaro ah oo xabsiga ka soo dhex hadashay iyada oo ka cabanaysa baahi. Waxa uuna sheegay in kiiskan uu yahay mid muujinaya sida ay u liidato xaaladda xuquuqda aadanaha. Waa sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre. Sidoo kale Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay dhalinyarada kale ee dhawaan ay dowladda Soomaaliya xirtay kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay muujiyeen aragtiyo mucaarad ah. Waxa uuna sheegay in xariga noocan ah ay sii kordhinayaan cabsida iyo kalsooni darrada ka dhex dhalata bulshada iyo dowladda Soomaaliya. dalkan runtii waxaa ka jira ayaan darro weyn. ayaan darradaasi waxay tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo dastuurku u asteeyey xuquuqdiisa, qofkii afka kala qaadaba xabsi baa la gelinayaa. qofkii yidhaahda cadaalad darraa la igu sameeyey, askar baa u imaanaysa, waa la xirayaa. Sacdiye Macalin maxay ku mutaysatay in la xiro? waxay ku mutaysatay keliya inay xuquuqdeeda iyo xuquuqda dadkeeda u doodo. waa aragteen maanta xabsiga ayay ka soo hadashay. xariggii waxaa loogu daray in la yidhaahdo xabsigana cunto ku cuni maysid. way soo hadashay, annaga codkeeda maqalnay, cid walbo idinka mid ah oo ay leedahay 4 maalmood waxba maanan cunin, iyadoo sharci darro iyo cadaalad darro ku xiran. wiilashii dhallinyarada ahaa ee laga xiray halkan Jazeera Hotel agteena habeen dhowey, Sharmaarke Maxamuud iyo Najiib Cusuble, maxaa loo xiray iyagana? waxaa loo xiray keliya inay yidhaahdeen xuquuq baan rabnaa, doorasho loo dhan yahaan rabnaa, cadaalad baan rabnaa, wax kale maanay dhihin. dowladdu haddii ay rabto qofkii afka kala qaadayba ama kala qaadaba in la xidho, 20 milyan oo Soomaaliya may wada xiri karaan? xarig iyo xoog iyo qori intuba xal ma keenaan. ugu dambayntii waxaan leeyahay in ciidan kii loo asteeyey inay la dagaalaan argagixisada loo diro Hirshabeelle, hadda qaar loo soo diraayo Galmudug, qaar magaalada Muqdisho bannaankeeda la dhoobayo iyadoo la isleeyahay ha lagu cabsiiyo mucaarad. xal noqon mayso, waa la soo tijaabiyey, shaqayn mayso. waxaan soo jeedinaynaa dalkan hal dariiq baa u furan: mucaarad iyo muxaafid, dowladda dadka ku jira iyo kuwa dibadda taaganba. waxaa u furan dariiq ah in dalkan doorasho heshiis lagu yahay laga hirgeliyo, si loo ilaaliyo dhaqankii soo jireenka ahaa oo ahaa 4 sanaba dalkan inay ka dhacdo doorasho nabdoon. idinka ayaa la rabaa inaad cudud iyo ciidan u noqotaan sidii lagu gaari lahaa. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. weli waxaad daawanaysaan warka VOS Somali TV. wararka caalamka qodobada ugu waaweyn haddii aynu fiirino, Iiraan ayaa si cad ah u diiday in ay wada hadallo la yeeshaan Mareykanka. wada hadalladaasi oo ay daba socdaan hanjabaadyo. warbaahinta qaranka ee dalka Iiraan ayaa si cad ah u beenisay wararka sheegaya in wafdi Iiraaniyiin ah ay u safreen ama ay qorsheeyeen in ay tagaan magaalada Islamabad ee dalka Pakistan si ay uga qayb galaan wada hadallo la xiriira xaaladda gobolka. qoraal lagu daabacay barta Telegram ayaa lagu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax wafdi ah oo Iiraan ka socda oo gaaray Pakistan, iyadoo sidoo kale uuna jirin qorshe safar noocaasi ah, iyadoo wararkaasi lagu tilmaamay kuwo been abuur ah oo ay faafiyeen warbaahinta caalamiga ah iyo ilawareedyo gobolka ah. mas-uuliyiinta Iiraan oo uu ka mid yahay afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi Maxamed Baaqir ayaa horey u cadeeyay in Tehran aysan aqbali doonin wax wada hadallo ah oo lagu wado cadaadis iyo hanjabaad. dhanka kale, mustaqbalka wada hadallada u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka ayaa galay marxalad mugdi ah, iyadoo xilligan xabad joojinta uu ku dhow yahay in uu dhammaado. xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay
iyadoo ay isa soo tarayaan hadallo kulul, hanjabaadyo iyo warar iskhilaafsan oo ka imaanaya labada dhinac. Xaaladda ayaa muujinaysa in rajadii diblomaasiyadeed ay sii yaraanayso isla markaana gobolka uu wajahayo xaalad hubanti la'aan ah. guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen VOS Somali TV xarunta magaalada Muqdisho waa nageynta.